بسم الله الرحمن الرحيم maanta waxaan soo saarnay wareegtadan ku aadan xaruntii ciidamada badda ee degmada Cabdicasiis iyo gurigii taliyihii ciidamada badda markaan arkay dastuurka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya markaan arkay sharciga maamulka gobolada iyo degmooyinka markaan arkay sharciga dhulka iyo dhismaha gobolka Banaadir xeerka badaha sidoo kale markaan hubsaday in laga maarmaan tahay in dib u hagaajin lagu sameeyo qorshaha guud ee master plan-ka ee caasimadda markaan xaqiiqsaday baahida degdegga ah ee loo qabo in safaaradaha iyo diblomaasiyiinta loo asteeyo goobo ay ku howlgalaan waxaan soo saaray xeerkan waxaa cid allaale iyo ciddii ay qusayso lagu wargelinayaa in xaruntii ciidamada badda ama ex-marine loo yaqaanay ee degmada Cabdicasiis iyo gurigii taliyaha ciidamada baddaba iyo dhulka dhanka dambe ilaa iyo xeebta badda loo asteeyay goob ama deegaan diblomaasi ah dhulkaas oo ahaa dhul dawladeed dan guud loogu talagalay markii horeba qorshahan ayaa ujeedadiisu tahay in caasimaddu ay la tartanto caasimadaha adduunka isla markaana loo helo diblomaasiyiinta iyo safaaradahaba goobo ay uga howlgalaan dalka iyo si loo soo celiyo bilicda caasimadda sidaas daraaddeed waxaa xeerkan lagula wareegay ama dib loogala noqday dadka dukumentiyada u haysta dhulkaas maadaama dhulkaas uu markii horeba ahaa dhul dan guud ah sidoo kale waxaan hay-adaha dowladda federaalka ku wargelinayaa inay joojiyaan dhulalka ay bixiyaan ama ay siiyaan fasaxyo dhismo magaalada bacdama dawladdu ay u wakiilatay dawladda hoose xamar iyo duqa magaaladaba inuu mas'uul ka yahay dhul bixinta iyo fasaxaba ugu dambeyntii cid allaale ciddii amarkan jabisa ama u hoggaansami weysa waxaa lala tiigsan doonaa sharciga sidoo kale waxaan ognahay in dhulkaas aan ka hadlayno dad mas-uuliyiina ay ku jiraan taliyaashii hore ciidamada qalabka sida kala duwan inay guryo ka samaysteen dabaqyo ka dhisteen taasna runtii ay fadeexo weyn nagu tahay dhammaan mas-uuliyiinteena iyo dowladdaba shakhsi mas-uula dowladda ka tirsan ama ka tirsanaan jiray in uu dantiisa ka fikiro waxaa ka wanaagsan danta guud shacabkeennii iyo masaakiinta ayaa u maqan haddii annaga mas-uuliyiinteennii qofkii xil qabtaba uu guriguuraba iska dhisanayo ama goobihii danta guud u isticmaalayo dano shakhsi ah sidaas daraaddeed waxaan rajaynaynaa maanta wixii ka dambeeyo inuu xeerkan dhaqangeli doono warbaahintan waxaan ka codsanaynaa arrintan waa arrin dan guud waa arrin muhiim u ah bulshada inaad idinkana kaalintiina ka qaadan doontaan waa mahadsantiin